السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدك كوارم ولا ليال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu dib noo xasuusinayaa abuurkeena iyo meeshaan ka soo bilaabanay. falyandur ilinsaan, war insaankan kibirka badan, madax adayga badan, salaatuka warma adaa igu leh kugu jawaabaya. warqaadka iyo sigaarka iska daa, warma adaa ii iibiya kugu jawaabaya. walaalay ha isqaawinin ee jasadkaaga qarso ee xijaab qaada markaad dhahdana kugu jawaabaysa. casriga lama socotid, bal ha eega mima khuliq, maxaa laga abuuray. war kibire maxaa laga abuuray. war isqaadqaade maxaa laga abuuray. falyandur ilinsaan mima khuliq. khuliqa min maa'in daafiq, biyo boodboodayaa laga abuuray. min maa'in daafiq, wallaahi mare ay kaa gaartay inaadan kari karin. hablaha ku soo salaamee qurfada juluuska ama qolka fadhiga kuu fadhiya inaadan kusoo bixi karin, soo maaha walaalay. meesha ay kaa gaartay waad la dhuumanaysaa, kaasaa lagaa abuuray. maantana waa madax taagaysaa, waad qarsanaysaa, waa lagula yaabayaa, waa layska dhaqaa, waa layska mayraa. alam nakhluqkum min maa'in mahiin, mahiin buu ku magacaabay ilaahay. xaqiir, biyo xun, biyaan qiimo lahayn, biyo laga faano, biyo aan akhyaarta lagula bixi karin, biyo aan masjidka lagu aadi karin. subxaanaka yaa allah. alam nakhluqkum min maa'in mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin ilaa qadarin macluum faqadarnaa fanadiruun. waylun yowmaidin lilmukadibiin. khuliqa min maa'in daafiq yakhruju min bayni sulbi waataraa'ib. waxay ka soo baxaan dhabar aabbii kalxan hooyo. weli waxaa naloo tilmaamayaa sida nala ka abuuray iyo waxa meesha aan ka nimid bilowgeena. yakhruju min bayni sulb waataraa'ib, iyo kalxamaha hooyo. mar allaala marka dhabarkaabay ka soo baxaan, mar allaala marka hooyo kalxamadeeda ay ka yimaadaan waxa adiga lagaa abuuray. labadaba waxa ay soo marayaan meeli ay nijaasi soo martay. iska daa wax kale. laa ilaaha ilaa anta. tuubaa laanjana waxaa iskale ninka qaybihiisa kaga mashquulay ceebteyda uma jeedi walaashay, ceebteedaan u jeedaa. caawa dhan waa ka sheekayna ceebteedana u jeeda, ceebta walaalkeed bay arkaysaa. caawa dhan bay ka sheekaynaysaa. yakhruju min bayni sulb waataraa'ib. adiga mar allaala marka riximka hooyo lagu geliyey, dhiig, uus, dahaar, xuub, mandheer, intaasaad ku dhex jirtay adiga. isqaymaynaya, issarfaya. sandwichka waxaad ku qabsanaysaa gacanta bidixda ah, sharaabkana gacanta bidixdaad ku cabaysaa, soo maaha. yaan lagu dhihi karin walaal ilaahay ka baqe midigta ku qabso. jawaabta uu bixinaya waa naqaanaa.
iyo waxa uu ku hadlaayo. meeshaasaad ka timid, halkaasaad ka soo baxday, meeshaasaad ku jirtay. waid antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum falaa tusakuu anfusakum. hoy naftiina hanoo ammaanina. waxaad ku qarsoonaydeen fii butuuni ummahaatikum, hooyooyinkiina caloolahooda. intaa ka bacdi ayaa waxaad ku jirteen fii dulumaatin halaath, mugdiyaala 3 ah. khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaath. abuurba abuur ka dambeeya, abuurba abuur ka dambeeya. saa wixii ka dambeeya buu ilaahay yidhi yakhruju min bayni sulbi waataraa'ib innahu calaa rajcihi laqaadir. insaankii sidaa ahaa soo celintiisa inuu ilaahay markuu dhinto dib u soo bixiyo qaadir buu ku yahay subxaanahu wa tacaala. innahu calaa rajcihi laqaadir. yowma tubla saraa'ir, maalinta siryaalka iyo waxa qarsoon oo dhan la faydaya buu yidhi ilaah subxaanahu wa tacaala. yowma tubla saraa'ir famaa lahu min quwatin walaa naasir. awood iyo wax u gargaara labadaba ma laha. adduunka maxaa lagu badbaadaa? waa inaad awood isaga celiso qofka. haddaad kari weysana in laguu soo gurbado soo maaha. labadiiba ma jirta buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. famaa lahu min quwatin walaa naasir. haddaba walaalayaal, insaan baa nahoo naf baa ilaahayna geliyey subxaanahu wa tacaala. xikmad cajiib badan buuna ilaahay naga leeyahay ee nama abuurteen. xikmad baa naloo abuuree adduunkana naloo keenaye nalama keeneen. xikmad baa naloo arsuqaa oo naloo dhaqaaleeyaaye nalama dhaqaaleeyeen. xikmad cajiib badan baa ilaahay naga leeyahay. xikmadda waa qofka inuu garto fahmana inta maalmeed ee adduunka alle kuu xariiqay ee laguu qadaray ee mar allaala marka caloosha hooyo aad ku jirtay malagay laguu wakaashay uu ku yidhi ilaahayow nudfaad timid, ilaahayow calaqay noqotay, ilaahayow mudqo iyo cad hilibay noqotay. ajashiisu waa imisa? allahu akbar. waa maxduud, waa maktuub. wamaa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaah kitaaban mu'ajalan. kitaaban mu'ajalan. naf dhimatay ma jirta ilaa ilaahay idinkii bay ku dhimanaysaa. kitaab mu'ajal ah buu ilaahay u sameeyey, la madaleeyey. kitaab mu'ajal ah buu ilaahay u sameeyey, la magacaabay. ajashiisa waa imisa? caloosha hooyaa lagugu qorayaa. weli caana ma cabin, weli baad ma cunin, weli labis ma xiranin, weli dahab laguma xirin, weli laguma guursanin, weli awlaad ma dhalin. maktuub, way qoran tahay. waman risq, muxuu cunayaa? muxuu cuni doonaa? ma ilaahay baa
rasuulkii allow maan iska dayno hawshaa iyo shaqada aan weyno, waxa aan wadno maan iska dhaafno. muxuu ugu jawaabay i'maluu, war camal qabta fa kullu muyasarin lima khuliq. qof kasta wixii loo qalqaa loo fududeeyey, qof kasta wixii loo qalqaa loo fududeeyey. nimaan salaad ka istaagaynin, midaan soon ka istaagaynin, midaa xaj jecel, midaa habeen iyo maalin meeshaa ummadda amar macruuf nahyi kula jira. yusr. fa amaa man acطaa waataqaa buu akhriya nebiga, wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa, wa amaa man bakhila waاstagnaa wakadaba bilxusnaa fasanuyasiruhu lilcusraa. subxaanahu wa tacaala, qofkii baxya xoolihiisa rabbi ka baqa. fa amaa man acطaa, muxuu wax u bixinayaa inuu qiyaamo helo, muxuu wax u bixinayaa midda in rabbi xaggiisa uu wax uga helo, in janno ilaahay uu ku iibsado, inuu ilaahay jannadiisa uu helo. waataqaa, baqay dhowrsaday. muxuu u dhowrsanayaa in lafihiisa cadaabka laga dhowro, muxuu u dadaalayaa sidii jannada uu ku heli lahaa. waataqaa wasadaqa bilxusnaa, tii ficnaydna rumeeya, fasanuyasiruhu lilyusraa, tii fududayd un baanu u fududaynaynaa. camalkii jannada lagu gaari lahaa oo markii horeba iska fududaa ayaa loo sii saqirayaa, waa loo fududaynayaa. jiifkuusan ku daahaynin. kuwa waxaad moodaaba markuu habeenkii kaco in dhaqaatiirtii dadka insaaniyadda ah waxooda ka hadlahayay, qofku waa inuu helaa 8 saacadood oo tamaam ah oo hurdo ah ayaa markaa la yiri. 8 saacadood haddaadan hurdo helin wuu kusoo daliilsanaaba. 8 saacadood, laa ilaaha ilaa anta. 12 saacadood oo maalintii ah waxaan u taaganahay shaqo adduun ah, ilaa fiidka hore iyo 6 sac ama 4 sac laga gaarayana intii qayisha iyo intii mataqaanaa fadhi ku dirar aadah iyo intii dumar iyo waxyaabo kala raadisa ayaa saa u meeraysanaya. 8 saacadood oo soo hartayna wuu hurday. ayna alcibaada, aaway cibaadadii, aaway wixii ilaahay subxaana wa tacaala lala hortagayay, aaway mar allaala marka geerida ka bacdi la dhinta wixii imaan lahaa. ha itoosin salaada subax. culimmadii saynisku waxay dhaheen cala al aqal qofku waa inuu helo 8 saacadood oo hurdo ah. 8 saacadood oo hurdo ah. war 8 saacadood nin hurday, 12 saacadoodna u joogay mataqaanaa adduun, 12 iyo 8 isku dar waa mataqaanaa waa 20 saacadood. 4 saacadoodna xaaraan iyo qaad cun iyo sigaar cun iyo gabar la tuma ku jiray. aaway jannada. markuu ilaahay jannada ka hadlayo walaalayaal fii suurati daariyaat akhriya, ina almuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun. subxaana wa tacaala, ma jannaa fudud, janna maa sahlan walaalayaal. ina almuttaqiina fii jannaat wa cuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum, wixii ilaahay siiyey qaadanayaan, wixii ilaahay siiyey ku raaxaysanayaan, wixii jannada ilaahay ku siiyey ku tamatucayaan. aakhidiina maa aataahum rabbuhum, sababta loo siiyey mataqaaniin. inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin, war jannadan horteed bay muxsiniin ahaayeen, jannadan hortiisay dad fiican ahaayeen, jannadan hortiisay dad suusuuban ahaayeen, jannadan horteeday dumar ha hagaagsano, akhlaaq fiican laho, usluub fiican laho, isxijaabo, diinta alla ku socda ahaayeen. qalad hadduu ka dhacana rabbigood bay u degdegi jireen subxaanahu wa tacaala. inahum kaanuu qabla dalika muxsiniin. maxaa kale ilaahayo oo ay jannada ku galeen? kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun, in yar oo habeenkii unbay seexan jireen. madax xanuunna maynan qabi jirin, dhiig karna maysan qabi jirin, sokor iyo balaayana maysan qabi jirin, dhiig macaanna maysan qabi jirin, cudur macaan la yidhahdana ma maysan aqooninba. allahu akbar. kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. waayey habeenkii in yar hadday ka seexdeen miyaysan aroortii seexan jirin? maya. wabilasxaari hum yastakfiruun, xaloo dhan buu taagnaa markaasuu subxii laa ilaahu ya cafi. kii khamriga iyo bakhtiga iyo balaayada cunaayey, tii ka hor timaadaba tiisa ahaydee saaranayay,
waa faraxsan yahay, wuu hurdayaa. asagana caawo dhan buu taagnaa, caawo dhan bay taagnayd. aroortii bay leedahay ilaahu ii cafi, ilaahu ii dembi dhaaf, sidii qof macaasi io dembi ku jiray oo kale. caaisha mar allaala markii ay akhrisay waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah annahum ilaa rabbihim raajicuun, waxay tiri yaa rasuula allah, aayaddaa ma dadka qamriga caba oo sinaysta oo dadka dila oo xumaanta gala miyaa? waaladiina yu'tuuna maa aatow wa quluubuhum wajilah, laa buu yidhi waa dad sooma oo salaada oo xajiya oo cibaadaysta, haddana ka baqa in laga ajiibi waayo, oo subaxii markii la gaaray xilliga saxuurta intay gacmaha kor u taagaan dhahaya ilaahayow iska kaya cafi. wabilasxaari hum yastakfiruun, wabilasxaar hum yastakfiruun alsaabiriina waalsaadiqiin, saabiriin saadiqiin khaashiciin waalmustakfiriina bilasxaar, iyo kuwa xilliga saxuurta la beegsada dembi dhaafka. dadka xilliga ilaahay subxaanahu watacaala uu diyaar u yahay ee uu odhanaya yaa wax i weydiisanaya, gacmaha kor u taaga, ilintana ka qubanaysa, rabbigoodna ku socda subxaana wa tacaala. qole khaafiliin ahaa jirto xilliga afkooda qaadka ku jira, dhalada qamrigana ay meesha taala, waciyaadu billaah. ilaahay baan in badan ka magangelaynaa. inta saas ahna rabbiga xaqan weydiinaya inuu ilaahay kasoo hanuuniyo subxaana wa tacaala, inuu rabbi kasoo hanuuniyo, ilan waa la dhimana, inuu rabbi kasoo celiyo, ilan qabri baa la gela, in rabbigood tooba waafajiyo. qaaraaba dumar qaaqaaban ag fadhiyaan oo la qayilaya, qaar baa xaasas leh oo xaasaskoodana iska jiifa, iikana meelaha iska fadhiya, carruurtooda aan waxba markaa ka ogeyn. waalmustakfiriina bilasxaar, asxaar xilliga saxuurta, xilliga mataqaanaa saqda dhexe, xilliga ay salaada subaxi soo dhowdahay, xilliga ay hurdamacdahay. maxaa jiifka u diiday? kanba waa jiifaaye. maxaa inay raaxaystaan u diiday? kanba waa raaxaysanayaaye. war midaan mu'minada ee ahlu iimaanka ee ahlu muxajabada ee ahlu qur'aanka ee ahlu cibaadada ah maxaa xilligaa toosiyey? faajiradii caariyadda ahayd ee mataqaanaa faasiqada ahaydba way jiiftaaye. midaan hami bay leedahay, amal bay leedahay, yididiilay leedahay, jannay raadinaysaa. adduunka mataacdiisaa waxay u aragtayba inaysan mataac ahaynba, inaysan raaxo dhaba ahaynba, in raaxo dhalanteeda ay tahay. raaxada dhabtay dalbaysaa, raaxadii dhabtahayd baa ka maqan. markaasay jiifka jiifan karin, markaasay raashinka say doonta u cuni karin, markaasay hadalka say doonta u hadli karin, markaasay socodka say doonta u socon karin. mar walba xuduud ilaahay bay ilaalinaysaa subxaana wa tacaala. lee macaankii xayaatada adduunka dhalanteed waxay raadinaysaa xayaato xaqiiqa ah, waxay
haystaa oo aabbana dharkii ciiduu iibiyaa, baastadii iyo suugadiina waa u diyaariyaa, baastadii suugadii waa u diyaariyaa. idan adduunka waxa ku tacalluqa ee ku saabsan keliya muxuu awowgii labaad ama kii saddexaad u aqoon waayey, muxuu u sheegi waayey, muxuu mar walba qabrigiisa u tegi waayey. neef laguma haysto, ma dharu noo iibiyaa, ma raashin buu noo soo waxeeyaa, waa ma jirto. lee qofka waxa uu danta adduunka uu ku haysta keliya waay. aniga hadda markaa aan dhinto ama aabba uu dhinto, ka soo qaad haddana 2 jiil oo kale, 2 farac oo kale markay yimaadaan, saasi aad u ilowday awowgii labaad baa laguu iloobayaa walaale. saajadadii ayeeyadii labaad aad u ilowdaa laguu iloobayaa. haddii alla ku iloobay kaaga sii daran tahay, haddii raxmaanka ku iloobay kaaga sii daran tahay, haddaadan camal fiican la tegin bay kaaga sii daran tahay, haddaadan dadaalin bay kaaga sii daran tahay, haddaad ilaahay inkirtay kaaga sii daran tahay subxaanahu watacaala. kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaar waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur ilaa mataacu lguruur ilaa mataaca alguruur. war dadka yaa ugu caqli badan baa nebi maxamed la weydiiyey sal alla alih wasalam. war dadka yaa ugu caqli badan nebi maxamedow. akyaasta ummaddu waa kuwee? waa kuwa ugu badan xusuusashada meydka buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. waayo meydkoon la xusuusto xaaraantay kaa celin, meydkoon la xusuusto xaaraantay kaa joojin, meydkoon la xusuusto toobaday kugu dadejin, meydkoon la xusuusto ummadda dhibkeeday kaa celinaysaa. gacantaada iyo afkaagaa laga ammaan helayaa markaad geeri xusuusato. war afkaad maanta ku caytamayso, war afkaad maanta xumaanta ku sheegayso, afka aad maanta shirkiga kugula hadlayso, haddaad og tahay in ciid laga buuxinayo, inuusan dhaqaaqayn yowm min alayaam, inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu u naxariista maahane kelimada tawxiidka uu gabi doono, waad xakamaynaysaa, waad celinaysaa, waad is-ilaalinaysaa. ilaahay baad u dhowaanaysaa subxaana wa tacaala. khayrkaad kaga caada dhigaysaa, wanaaggii khayrkaad ku badinaysaa. waxaad dhaqan gelinaysaa xadiiska nebiga, man kaana yu'minu biاllaahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyaskut aw liyasmut, ama ha aamuso. war khayrku hadal ama aamus, waan isxisaaba. waxbaana daba taagan. maa yalfidu min qowl ilaa ladayhi raqiibun catiid. qofku qowl kuma hadlo ilaa raqiib iyo catiid baa garbaha ka saaran. walaalayaal, intaa waxaa ka sii daran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhex yeelay ee musiibada. ilan geeridu waa musiibo. binasi alqur'aan buu ilaahay ku tilmaamay geerida inay musiibo tahay, inay musiibo tan u adag ee u xanuun badan ee markaa tahay. waayo jasad dhaqdhaqaaqayaa dhulka ku dhacay, jasad xarakaynayaan xarakayn karin walaal, jasad gaari kaxaynayaan gaari kaxayn karin, jasad isqurxin jirtay oo is-cilaamin jirtay oo istaqaanaa isxinayn jirtay oo daawo ismarin jirtay oo dahab isku saari jirtay oo dirac xiran jirtaan xiran karin. wax sahlan ma aha. fa asaabatkum musiibatu lmowt buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. ay idin asiibto meydka musiibadiisa, musiiba almowt, meydka musiibadiisa idin asiibto. waa musiiba aad iyo aad u dhib badan, waa arrin fajac leh. imaanaya asoo mimbarka taagan baa loo waxyooday. intuu ka soo degay nebiga oo gurigeedii yimid asma binti xumays, ciyaalkaa saas ugu soo kala cararaay. nebiga iyo jacfar way isku ekaayeen in badan, saasay u qabsanayaan, saasay u haayaan. musiibaa dhacday ma oga,
way qusquslayaan. midba dhinac buu nebi moxamed ka haystaa sala allahu calayhi wasalam. dhinac buu uga dhegan yahay, ku halkan buu ka haystaa, ku faraquu uga dhegan yahay, ku dhabtuu saas uga haystaa nebiga sala allahu calayh wasalam. madaxuu saa ugu salsalaaxayaa dhammaantood. ilinta ma celin karo, ilinta way soo dhaafdhaafaysaa. asma waxay tiri nebi moxamed inaan weydiiyaan damcay, jacfar iiga waran, laakiin waxaan ka baqo dib isugu dhigay in wax iganxii uu ii sheega nebiga sala allahu calayhi wasalam. musiibaa meesha taalla, musiibaa asiibtay, dhib baa jira, mashaakil baa jira. maxaa kugu dhaca yaa rasuul allah? ma jacfar baa kaa soo gaaray? inta way shahiideen buu yidhi sala allahu calayhi wasalam. isnacuu liaala jacfar طacaaman 3 ayaam, 3 maalmood raashin usoo sameeya. waxaa u yimid maa yashquluhum, wax mashquuliya. idan qofka ugu caqliga badan waa qofka ugu xusuusasho badan geerida. geerida qofka ugu xusuusashada badan waaye. in badan xusuusta, in badan ogaada, in badan fiiriya. dhigka noocaasa waay, io gabadha noocaas oo kale markaa ah. walaalayaal, adduunku waa inta aan ka arkayno, adduunku waa intaan uga jeedno. wax u qarsoon ma jirto. ninkii isku hallayn lahaa iyo ninkii daar ka dhigan lahaa iyo ninkii macaasi u geli lahaa iyo ninkii gabar xijaaban u cay lahaa iyo ninkii muslimiinta ay ka badbaadi la'yihiinba, wax u qarsoon ma laha. maalinna madaxa ha ku xanuuno, maalinna meel kale ha lagaa qabto, maalinna gaajeysnow. wallaahi marka sidaa loo dhahayo waxay tahay waxaa lagu dhex iloobayaa jahanamo gudaheeda, jahanama dhexdeeda. waa meesha cadaabka ah, waa meesha dhibka iyo rafaadka badan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jahanamo ku tilmaamay. yuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala, meeshaasaan idinku hilmaamaynaa kamaa nasiitum liqaa'a yawmikum haada. macnaha liqaa'a yawmikum haada macnaheeda camalkiibaad ka tagteen oo maalinta alla kulankeeda idin badbaadin lahaa. wixii idin fakin lahaa ayaad ka leexateen, wixii khayrka ku jiray ayaad ka tagteen, wixii sharta ahaa ayaad raacdeen, wixii ilaahay idiin diiday waad dhex gasheen, wuxuu idin dirayna waad ka tagteen. alyawma nansaahum, waa idin hilmaamaynaa maanta saad maalintan la kulankeeda u hilmaanteen oo kale. sidaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar allaala marka agtiisa khayrka iyo wanaagga laga rabo inta badan waxay ku timaadaa fulin la fuliyo awaamirtiisa, ka tegid laga tago nawaahidiisii wixii markaa uu diiday. xaaladda waa sidaa. waayo dad fara badan baa qiyaamaha marka la tago ama maalinta meeshaas la gaaro waxay xaaladdu la noqonaysaa si ayagu ay u maleeyeen si aan markaa ahayn. sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. ilaa xaggiisa waxaa uga soo daahir waxaysan ayagu malaynaynin, waxaysan muuqanin ama aan u muuqanin. bacdamay xaaladdu sidaa tahay walaalayaal. geerida ha loo diyaar garoobo. nooma soo digto oo nooma timaado, nooma soo sheegto, nooma soo akhbaar dirto, ma dhahdo waan soo socdayn waan soo dhowahay. macaankay ummadda ka goysaa maalintii saa isugu kaa toosto. ya qofkii waa rafaadaya, afrikuu soo maraya, meel kastuu soo maraya. yurubbaa maanta nala ah annaga meel qiimo badani. markuu maalinta saas usoo galo, baasboorkiisii faraha laga saaro, gabar yar oo jalaqsan uu guursado, gaarigiisii caddaan la siiyo, gurigiisii loo saxiixo. akthiruu dikra hada min ladaat, macmacaan gooyaha xusuusashadiisa badiya. madaxa xanuunay, wadnaha istaagay, waxaa ku kacay dhiig baa ku kacay, waxbaa ku karay, waxbaa sidaa noqday. kulli asbaab, kulli waa sabab. aadana sabab la-aan ma dhintay dhahan soomaalida. qof kastoo dhinta fiiri walaal, wax uun baa dusha laga saari. laakiin waktigii baa dhammaaday. ma wakti dhammaadaa dib loo celin karaa? geedka xabasowdaha la dhaho haddaad cuntaan walaalayaal waa daawo. nebi moxamed baa yiri sala allahu calayhi wasalam, cudur kasta waa idinka daaweynayaa. dhiikar haddaad qabtan wuu kaa daaweyn, madax hadduu ku xanuun wuu kaa daaweynayaa, lugaha hadday ku xanuunan wuu kaa daaweynayaa. xabad sawdaha bahalka lagu magacaabo shifaa, waa daawo. wax kastuu daawo u yahay.
إلا الصام ملك الموت ما هني ملك الموت وح إلين كرمال إلا إنه قفك قاطع ما هني وروح إلين كرمال إلا إنه قفك قاطع ما هني دور جربي أثرت المنطقة إنه جوريga kusoo laalaabanayo dhowr jeer saasuu noogu dul wareegayaa xilli aan iscaayna iyo xilli aan isdagaalna iyo xilli aan dhahno maxaan qabanaa iyo xilli aan dhahno meel khansiira ma laga shaqayn karaa iyo xilli aan dhahno imtaqaanaa lacagta oo ninkii naagta kala carara wixii la dhaha ma aqaani ma qaadan karnaa iyo maba la joogaba xilli waxaa la joogaa fafiruu ila allah war ilaahay u carar ahwa ilaahay jidkiisa war aaway waddadii ilaahay dadka ku badbaadin lahaa war aaway waddadii sakaraadka laygu qafiifin lahaa war aaway waddadii imtaqaanaa qabriga layguga waasicin lahaa xilligaasaan maanta maraynaa walaalayaal xilligaasaa maanta la joogaa xilli waxaa la joogaa walaalayaal aad iyo aad u fitan badan oo u khatar badan xilli waxaa la joogaa mowtulfaj'aha uu badan yahay qofka markuu xanuunsado cabaar la rogrogo ayay marka hore ahaan jirtay laakiin mowtulfaj'a badan markay macaasida badataa ummadda lagu sallidaa marka dhibka bataa ummadda lagu sallidaa mowd noocaasaa badan xaaladaasaa fara badan aaway sakaraadkii laa ilaaha illaa anta yaa rabbi nebi maxamed buu ka oysiiyey sakaraad nebiguu ka oysiiyey sala allahu calayhi wasalam ilmo yaroo dhimana inta dhabta loo soo saaray ilmo yaroo dhimana in dhabta loo saaray naftiisay qarac leedahay naftiisay khaakh leedahay naftiisay xarakaynayso sabi cunug yariis ah sabi saasuu u eegay kasoo daateen biyihii indhihiisii nebiga sala allahu calayhi wasalam gabadhiisaa dhashay aaway ibraahim wiilkii asaga ahaa nebiga ibraahim buu u soo galay wahwa yajuudu binafsihi asoo nafsadiisa ku saqaayoonaya asoo naftiisa bixinaya ibraahim nebiga indhihiisii biyaa ka soo daatay sala allahu calayhi wasalam nin saxaabiya ayaa yidhi ma adigaa ooynaya rasuulka ilaahayo naxariis waayuu dhahay ilaahay qofkuu doono qalbiga u geliyaa subxaana wa tacaala kuwaaba mid ku dul sheekaynaya maanta sooma oo ku sigaar dulcabaya oo dhala khamriya iyo qaadna afka ugu jira wixii ugu dambeeyey ummadda lagu cabsin lahaa geeri bay ahayd geeridiina saasaa maanta la yeelay qabriguu dheg taagan yahay qof baa la aasayaa laba qofood xaggaasay fadhiyaan moobil buuba ku hadlayaaba gaarigii markabkii soo waday alaabta ma soo xirtay qofaa dhulka hoostiisa la gelinoyaa walaalayaal huma qasad quluubukum min bacdi dalik fahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحانه وتعالى ماذا قلت الله سي وضع آخر أقدم في صلاحات الدون ويهي دقائق كبعد عرى لقروق الربع فضيلة أساس الله يستعمل اللي يراضي كيس كسو استاقيا imise baabuur baa ii soo degtay markabkii ma soohno badbaaday ma jidkaa loo galay ma degay walbahaar baa haaya adduun buu ka fakerayaa ilaa ilaahay yiri intaa kadib baa qalbigiinii qalalay huma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaara dhagax oo kaluu noqday wahiya kalxijaara aw ashaddu qaswa ama waaba ka darnaaday dhagaxa xagga qalaylka dhagaxa iyo quluubteena adag xaqiiq marka la fiiriyo dhagaxa jilcan dadka gobol ka mid ah quluubtooda iyo dhagaxa fudud dhagaxa la tuujin karaa dhagaxa biyo laga keeni karaa quluubtoodu ilaahay ku tilmaamay aw ashaddu qaswa waayo wa ina min alxijaarati aw ashaddu qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء قال بيا كسو بحا نبي موسى مركو قوم كيسي أرب دوني وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر نجح أشرك ودفع ليري فانبجست وكدفتي مركو كدفتي فانبجست منه 12 عينا لا بيتبن إلقو برقنا يبرقضي وإن منها لما يتفجر منه الماء وإن منها لما يشقق
fayakhruju minhu lmaa qara biyo intay dilaacaan dhagxaanta biyo ka soo baxaa. wa ina minhaa lamaa yahbitu min khashyati illaah ku-aa kor ka soo dhacaya buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. muxuu la soo dhacay? min khashyati illaah, cabsi ilaahay. war dhagaxa ilaahay ka cabsaday oo jilcay. low anzalnaa hada alqur'aan calaa jabal lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyati illaah watilka alamhaal nadribuha linnaas lacalahum yatafakaruun. qur'aankan haddaan dhagax kusoo dejin lahayn, buur haddaan kusoo dejin waa go'go'i lahaa, waa jeexjeexmi lahaa, asagoo dhan waa dildilaaci lahaa buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala. ma qoraxaa ka badatay, mase roobaa ka batay, mase dhaxan baa ka badatay? muxuu u jeexjeexmi lahaa? lara'aytahu khaashican mutasadican. roobna kama badanin, dhaxanna kama badan. waa min khashyati illaahi, cabsi ilaahay subxaana wa tacaala. khashyat illah. wa tilka alamhaal waa mathal, waa tusaale dadkaan u samaynaynaa say u fikiraan buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala. haddaba sakaraadka xaalkiisu waa sidaa. ibraahim wuu ka ooyey rasuulka sal alla alay wasalam. uma atbacaha biukhraa, ilin kale buu soo raacsiiyey. markaasuu yidhi indhuhu way biyeeyaan, qalbiguna wuu murugoonayaa. annagu ku hadli mayno wuxuusan ilaahay raali ka ahayn. wa innaa la firaaquka, faaruqitaanka aadna faaruqaysa ibraahiimow lamaxsuunuun. daan malagana qabanin, war intaan waqtigeena lasoo aruurinin. fafiruu ila allah, fafiruu ila allah, fafiruu ila allah. ilaah xaggiisa loo cararo subxaana wa tacaala. ilaah xaqan xaqa ka barya inuu waafajiyo. maalinteena marka la gaarana maalin khayr qabta inuu ilaahay nooga dhiga subxaana wa tacaala. xaqa iyo tawxiidkana ilaahay nagu sugo. maalinta ilaahayna soo doonto, maalin annagana aan ku faraxsan nahay oo raali aan ka nahay, asagana raali nagaya ilaahay nooga dhiga subxaana wa tacaala. intayni noo dhimatay noo horumartayna ilaahay subxaana wa tacaala cafiyaya waxaan u weydiinaynaa inuu quwara u waasiciyo. intayna dhimanna oo jooga ilaahay maalinteeda inuu maalin hagaagsan nooga dhigo yana la xaqaa weydiinaya subxaana wa tacaala. gabdho idinkuna dadaala, in badan ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala. khayraadka ku degdega, daacada ilaahay ku socda. war in badan ilaahayna qaata. ilaahan idinkaga baryaa idinkale inuu xaqii wanaag idin waafajiyo, xishoodkii xijaabka idin waafajiyo, wax kastoo xaaraana idinka ilaaliyo, wanaaggii khayrka idinku dabaalo. ilah waxaa idinkaga baryaa dumarow fitanta adduunka jirtae faraha badan inuu ilaahay idin reed mariyo. gabdhaha halaabay ee xumaanta sameeya ee surwaalada suuqa ku socda
ee kilaabyada ka tunta ee da'yar ah weliba kaaga sii dana ummad muslimiina ah kaaga sii dana ummatu maxamed ah inuu ilaahay idinka badbaadiyo ayagana ilaahay noo soo hanuuniyo subxaana wa tacaala ay masaajidada iyo goobaha khayrka ay noo soo camiraan oo ay garabkeena noqdaan oo ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda iyo towbada waafajiyo oo ay ka ilmeeyaan oo waxa ay ku socdaan ilaahay kasoo hanuuniyo ayaan ilaaha xaqa u baryaya allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين إلهي سبحانه وتعالى نوها أقبله دعاء الشيخة خاصة قبلها إلهي سبحانه وتعالى هو أقبله قبلها دي نو وناكسنان رقنا وناكسنانيا والله نبرتي وأبعدي وخطروي وقنطالوي قبلها دي قلت لقشو دبر إلي نكون فتو horay buu asagoo madaxa u galahayaa ilaahay fidnadoodana ha naga leexiyo iyo sharkooda khayrkoodana hana siiyo amiin ya rabbal caalamiin intaas ka gadaal aayaad quraan insha Allah taala ayaan akhrisan doonaa ilaahay subhanahu wa taala sheekh xasan ibraahimna miisaanka xasanaadka u saaro cimrigiisa cilmigiisa aqligiisa cayladiisa caruurtiisa carabkiisa cududdiisa ciribtiisa ilaahay ha u ilaaliyo allah ha u xifdiyo ilaahay ha u ilaaliyo rabbi ha la soo saaro min annabiyiina wasiddiiqiina washuhadaa wasaalixiina waxsuna ulaa'ika rafiiqa inta dhegaysatay oo khayrka u fadhiday oo wanaagga u fadhiday quumuu kuwa la leeyahay ukaca ilaahay dambi dhaafkiis oo ilaahay uu ku leeyahay malaa'igtiisa annii ushhidukum annii qad ghafartu lahum ilaahay subxaanahu wa tacaala adinkana ha idinku daro anigana ha igu daro kulligiina ha nagu wada daro nacam maxaa ka wanaagsan ilaahay malaa'igtiisii wuxuu leeyahay iga warrama addoommadaydii markaas waxay leeyihiin yaa rabbi qolkii altaqwi caawda ku jireen muxaadaraadkii bay dhegaysanayeen tasbiixdii digrigii bay wadeen allahu akbar ilaahay ha noo aqbalo meesha wax kale looma iman ilaa ilaahay dartiis haddaba shiikhu wuxuu na xasuusiyey in loo diyaar garooba moodka wax yar waxaan ku nasan doonaa ustaad يرى هي سورة المؤمنون آخر كذا الله أكبر واحد على الصبورة تسمعني أستاذ يرى إن شاء الله تعالى فليتفضل في الميك أخي في الله الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني من مغلاه ما شاء الله إن شاء الله شيخ الله بركة الله يحفظيه ضمان الله نور يحفظيه جزاكم الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى ميزانك حسناتك كوساره استاذيره أنكنا إله أننا إله سبحانه وتعالى هنقول أنفعه وهنقول مدقه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن محاضراتك يا خيرك دتك فهمي وكعب رقاتي إله سبحانه وتعالى هنقول قرآن كان إله سبحانه وتعالى قلبي يدين هنقليه قرآن كان إله سبحانه وتعالى قلبي يدين هنقليه إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عدك وارجينا يا إنو في عيني waxa inoo soo gali doonta muxaadaro ku saabsan maxay ku saabsan tahay talow muxaadaradu maxay ku saabsan tahay muxaadarada iga jawaaba ha ma sha Allah guurkay ku saabsan tahay Sheekh Xasan Ibrahim Ciise waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su'aal haduu joogo واحد على الصبورة واحد على الصبورة شيخ حسن إبراهيم عيسى هل سؤال بان ربا إن كويديو هدي صورة قلتهاي وياهي شيخي متشوقه وابحي لكن ويل اللي رابا وحي يسوي ديي تدك وحن ربا كل جهاد علوم النقطتين سماها الشيخ عمر ساش الشيخ عمر فاروق باك جوابي الشيخ حسن إبراهيم باك جوابي الشيخ أمل باك جوابي الشيخ شبيل باك جوابي كله أكوذ جوابين كل جد وكوذ جوابين مركادي كانوا يدينيا ساشاس ويل كانوا حرجينيا انت سوقف اني ليهين شهداء على الارض اوكي واحد هي سؤال شو هدي ان حضو هنتي انا لهين هنتي داس مي حلال باهرتا وسؤال maahan waayahay dad baa qoslay waxay arkeen meeshan u socdo mar hore waayahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waayahay meeshan u socdo marka waxay tahay gabar aan reerkoodii la weydiisan oo aabaheedu san ogeyn oo san reerkooda ogeyn intaan u duso yaa
qodba sireed dhac ku siiyo dee wax saxa ma tahay arrintaas wax saxa ma tahay waayahay walaalkaas waxaan kula talinaynaa waxaan rajaynaynaa gabadhii maada guursan baan u malaynayaa gabadhii weli maada guursan sida aan qoraalkaaga ka arkay soo saas maaha talaan ku siinayaa wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku leeyahay gabadha reerkoodii la hadal aabe la hadal aabe asalaamu calaykum ma guursatay haddaad guursatay waxaan kugula talinayaa mar labaad cusboonaysii meherka insha allah mar labaad cusboonaysii insha allah kolley hadday hawshu bilbilow tahay waa idin jeedaaye haddaad soo xadeene ahay reerka u sheeg ciiddii baa dhaceen miya ciiddii waa dhaweyd insha allah wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu